ninkan ragga ugu dhow cidna caruurtoodii waxa la keenay dhaqaatiir Taiwan haddeerto miisaanka ka dhinta markay socon kari waayeen ladnaantii inamadan dhimanaya hadaad aragto ama meydkooda aragto ama dhaawacooda oo kamarada qabato lafta iyo cadka isku dhigay raganu dabka ku shidayo aanu ka naxayn waxaan noo soo tagalay inaanu waraysi la yeelano waqtigiina uu nasiyo Qorsmaan Axmed Boormadow oo ku sugan magaalada Muqdisho masiibada waxa weeyaan waa laga baaqsan karay waxaanu different ku kala duwanahay annaga wixii xukuumaddu naga disoo waxay oran jirtay xukuumadda waas ama mudaharaad lagu dilo wadogtay degmada Ceelafweyn iyo Ceerigaabo waxa lagu dilay ilaa iyo dawladdu ku dishay ilaa dad aan 20 ka yareen qof kasta dishana waxay oran jirtay hanoo aas haday cadaalad sameeyay waxay ahayd dadkii lagu leeyay laascaanood ee dibka iyo kacdoonka keenay haday ka gaabsatay inay keento oo sharciga hor keentay cidii geysatay inay hadaan xukuumadda oo aasadee dadku xun bay weeshan lahayd waayo 30 sanadood ayaa beershaan anigu odayga ka ahay aanu ka soo jeednaa la kala war aan wax wada yeelano war aan wax wada qaybsano dulmiga iyo isla weynidu waxay keenaan khasaare fara badan bay keenaan hudheeladayadu uu qaatay beerahayga uu qaatay dhulkayga uu qaatay wuxuuna aaminsan yahay inaanu nahay dad hadii aan leeyahay soo guurto kooyto timi Hargeysa laakiin garaadadu waxay og yihiin inaanu dhulka wada leenahay Soomaaliya sanadii tog dheer baynaanu wada leenahay garaad jaamac garaad cali oo shalay u dambeeyay wuxuu cadeeyay wuxuu warday dad baa nala leh oo iyaga ma kala go'i karo Hargeysa waan kala go'i karaa laakiin saddexdan gobol xaafadahayga bay isku jira guriyahayga bay isku jira dhaqan wadaag baan nahay Soomaaliland kale waa iska sii xignay laakiin waa naf markay meeshay ka baxdo weyday duruufta tan iyo kacdoonkani way ka fursan waayeen nin garaadi ma jecla dadkiisu inuu dhinto waliba waxaan ku sheegayaa inay ka xumaayeen garaadadu dadka xagga ku dhimanaya horaan uga hadlay waan sheegay xataa inuu dad layn doono inuu ku socdo dictatornimo iyo xasuuq waraysigii ugu dambeeyay Allah uu naxariistay sayidkii loo dhigay laga qaaday waxaan isleeyahay aayad xagga Ilaahay ka soo degtay bay Soomaaliland laba shay qori iibin jirtay caalamka waxaan ka iibin jiray dimuqraadiyad iyo doorashooyin iyo nabadgelyo labadaba cid ugu meeman hubkan isaga qaato dadka laayay khaatumana ma bilaabin oo dadka ma layn laga soo bilaabo mudaharaadkii dadkii firimbiga sitay hubkoodu firimbiga ahaa oo laayay isaga bilaabay xariga iyo caburinta iyo mashaakilka oo dhan isaga bilaabay hadda waxa la arkaysay oo kale wariyaashii ugu qaalisanaa beeshan aanu ka soo jeedo bakayle iyo teere iyo laascaanood bay joogeen dadkani dad cuqdad qaba maaha dad isaaq la dagaalamaya maaha dadka deegaanka la dagaalamaya iyagoo dadkoodii ay og yihiin dad beelahan ka soo jeedanay direen bay iyagu u tageen halgankay wax ku leeyihiin way la shaqeynay cadaalad darrada ka gilgisheen waxaan qabaa mas'uuliyadeeda wixii halka ka xumaaday mar hore horta beel ahaan baan u leenahay beesha dhexe marka la yaado marka xigtana Muuse Biixi baa waxa kan dhacay iyo dilkan iyo khasaarahan intan leeg oo mar walba laga maareysan jiray مثل baa wuxuu fi sira durus wa ibar fi sira